muddo 700 oo sanadood gobolka Bihar ee dalka Hindiya waxaa ka jira suuq haweenka ka soo iibsadaan ragga ay doonayaan inay guursadaan waa sida adiga oo dukaan aaday kadibna ka soo iibsaday wixii aad u baahneed gabdhaha guurdoonka waxaa socdaalka dukaameysiga ku heliya qoysaskooda sidaa daraaddeed sanad kasta kumanaan kun in rageed ah ayaa ku kulma geedaha la yiraahdo Bibal hoostooda ee suuqa degmada Madhubundi iyagoo sugaya in la iibsado ama gabar ay qaadato waxaa la yiraahdaa Sura Jamela ama Isbagani waxaana suuqaysiga ama dukaameysiga loogu jiro iibsiga ragga uu socdaa 9 maalmood waana dhaqan iyo caado uu bilaabay Sultan Raja oo hogaaminaya boqortooyadii Karnad muddo hadda laga joogo 7 qarni ka hor ujeedada uu bilaabo suuqa ayaa lagu sheegay in gabdhaha loogu fudeeyo inay kala doortaan kadibna xushaan qofka ku habboon ragga tuban suuqa si ay xaaskiisa u noqoto ragguna waa kuwa kala yimaada meelo kala fogfog nin walba qiimihiisa waa inta uu aqoon leeyahay heer jaamacadeed ahaan iyo inta xooggiisa jireed iyo dadnimadiisu ay tahay waxaa kaloo xusid mudan inay tixgeliyaan gabdhuhu in ninkaasi uu ka soo jeedo qoys sumcad leh oo aad looga yaqaan dalka Hindiya raggu waxay hore u soo qaataan dhammaan aqoonsiyadooda waxbarashada sida shahaadooyinka dhalashada iyo marqaatiyada kale ee muujinaya wanaagooda kadibna marka gabadhu ay ku qanacdo waxa loo gudbaa qiimaha iyo gorgortanka markaas kadib hadii la isku fahmo iibka ninka ayaa si kastaba daba gala afadiisa uu saygiida u noqdo laakiin alaaba go'aanka kama dambaysta ah waxaa gabadhu u gaara qoyskeeda iyagoo isku barbar dhigaya tayadiisa aqooneed iyo dabeecadiisa waxaa sanad kasta fogaan dheer uga yimaada rag askaabula ama doob aan wali guursan ah kuwaas oo ku dareynaya inay ku soo baxaan xulashada koowaad ee gabadha ragga iibsanaya Hindiya waxay sidoo kale leedahay suuq gabdhaha guurdoonka ah laga iibsado kaas oo gabadha lagu xusho quruxdeeda nadaafadeeda iyo dabeecadeeda waxaa la yiraahdaa hudi